madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 1 August 2019 dib u celiyay jinsiyadiisii uu ka haystay dalka Mareykanka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu muddo dheer ku noolaa dalka Mareykanka isagoo wax ku bartay kana soo shaqeeyay marar badan ayaa shacabka Soomaaliyeed ka doodan jinsiyadaha shisheeye ee haystaan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo xilal ka haya dalalka ama damac kaga jiro kursiga ugu sareeya dalka. tilaabadan madaxweyne Farmaajo ku dhaqaaqay oo iskiisa kaga tanaasulay jinsiyadiisa labaad ee dalka Mareykanka iyadoo aynan jirinin sharci diidaya in madaxweynuhu haysto la jinsiyadood waxay ka turjumaysaa sida madaxweyne Farmaajo uga go'an tahay wadan jacaylka iyo Soomaalinimada oo markasta ugu baaqo ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale arintan waxayba fur noqonaysaa in haatan laga bilaabo qofka raba inuu xilal sare ka qabto dalka ka tanaasulo jinsiyadaha kale oo ka haysto isla markaasna uu go'aansado sidoo kale uu go'o khidmadeynta dadka daacadna u noqdo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo waxa uu qaaday tallaabo taariikhi ah oo aan horey loogu dhiiranin. madaxweynuhu waxa uu mudan yahay bogaadin iyo in la garab siiyo xanaankiisa ku aadan in la helo qarannimo Soomaaliyeed oo milgo iyo sharaf ku dhexleh caalamka.